aniga magacaygu Hooda Cali Cabdi gariiqaan ka tirsan gariiqaanada Jamhuuriyadda Somaliland kana hawlgala magaalada Hargeysa waxaan maanta in yar ka sheegayaa ama aan ka hadlayaa xeerka kufsiga sinada iyo xadgudubyada 78/2020 ee baarlamaanku ansixiyeen haddaan dul istaago dhowr qodob oo arkay inay wax ka qaldan yihiin ama ay wax ka dhiman yihiin ama in lagu kordhiyo u baahan haddii aan si cad u dul istaago qodobka 19aad waxa ka maqan ama aan anigu tabayaa cidii loo gudbinayay faldambiyeedka iyo xilligii la gudbinayay inaanay si faahfaahsan qaab qoraal ahaan aanay u dhamaystirnayn ama aanay qornayn taasina waa gaab sharci oo ka maqan waxa kale oo jirta faqradiisa labaad sababihi daahida ayaa ku xusuusan sida dacwadu u daahi karto laakiin lama sababayn ama lama qodobayn qofku muxuu ku daahi karaa ma hadii uu distaniska meeshu imanayo dambiga kasoo report gareynaya miyay fog tahay muxuu ahaay sababta qofka daahin karta ma xanuun buu jireed buu u soo socon kari waayay sababahaas iyadoon la xusin ayaaba ay ku xusan tahay qof kasta sabab si kasto u daahaba dacwada waa la diiwaan gelinaya sideen ognahayna dacwadaha kufsigu waxa weeyaan 48 saacadood muddo ah ayaabay xaq u leeyihiin haddii kale waxa lumaysa dhaatadii waxa lumaysa DNA-gi waxa lumaya in la cadeyn karo inuu qofka kufsi ku dhacay in kale marka taa laftirkeeduna muxuu ahaay si aan gaab sharci ama khalad sharci u noqon waxa fiican in qodobkaas daahidiisana aad loogu noqdo ama la sababeeyo qofku distaniska iyo timeka qodobka 20aad wuxuu ka hadlayaa cidii loo soo ashkatoon lahaa ama dacwad loo soo gudbin lahaa oo kala ciidankii booliska xeerlaaninta iyo maxkamadii oo ay dacwadii soo galayaan marka anigu waxaan qabaa in labada qodob ee 19 iyo 20 hal qodob la iskaga dhigo waa labada qodob way isdhamaystirayaan markaas nuxurkooduna waa isla hal mid oo waxa weeyaan sidii loo soo ashkatoonayay cid loo ashkatoonayay marka waxaan jeclaan lahaa ama aniga ila tahay sharciyan inay ku sax tahay in labada qodob hal qodob la iskaga dhigo haddii aan taynta soo dhaafo qodobka 22aad wuxuu sheegayaa booliska iyo waxyaabaha ay bulshada u fidin doonaan marka loo soo ashkatoodo ama ay dhibanta ama qofka dhibanihii uu ashkatow keensado maxkamadda intaan la soo gaarin booliska uu imanayo qodobka 22aad faqradiisa 9aad waxaan anigu u arkaa inay khalad weyn tahay maadaama waxay si cad u sheegaysaa haddaan idii akhriyo faqradiisa inuu ku dadaalo in la soo qabto booliska marka la hadlaya inay ku dadaalaan in la soo qabto tuhunsanaha ama eedaysanaha dambiga haddii marka eeginta gaar ba looga xidhay haddii uu yahay qof lagu yaqaano faldambiyeed xeerkani dhigayo ama xaalkiisu qarsoon yahay haddii uu yahay waa la soo xidhayaa haddii uu yahay qof wanaag lagu yaqaanana lama soo xidhayo ee qofkii soo eedeeyay ayaa la xidhayaa taasina aniga waxay la tahay gaab sharci inay tahay waayo qof dhan oo soo dacwooday in la yiraahdo cidna rasuul ma aha cidna malaa'ig ma aha laakiin in la yiraahdo qofkaasi wax lagu yaqaana wanaaga dacwada aad ka soo gudbisay laga qaadi maayo lana xiri maayo waxaan u arkaa in khalad sharci tahay waana khaladkii ugu weynaa xeerkan horta ku jira intaan anigu eegayay marka xidhan laana qodobka totally ba laga saar qodobka 27aad faqradiisa labaad iyo tiisa saddexaad ba waxay ka hadlayaan ama ay dhiirigelinayaan inaan la soo dacwoonin oo maxkamadaha looba imanin waayo waxay sheegeen iyo laamaha amaanka wuxuu oranayaa mar haddii dacwadu gaadho hay'adaha dawladda iyo garsoorka sida shareecada islaamka iyo waxa kale oo oranayaa mar hadday gaadho hay'adaha dawladda iyo garsoorka uma laga garnaqi karaa taasina waa khalad weyn waayo dadkii waxay ku promote garanaysaa dadkeen waxay jecelin wax walba inay muxuu ahaayay ku dhameeyaan customer low iyo odayeyn iyo arrimahaas laakiin arrinkan oo kale waa dhaawac weyn lagamana wax laga garnaqi karo ama odayeyn lagu dhameyn karo maaha marka qodobkaas kale mar hadduu leeyahay haddii ay dacwadu maxkamadda soo gaadho dadkii waxay u fahmi karaan yacni wixii aan soo gaadhin waan iska xalisan karnaa marka qof waliba intuu odayaashiisa u yeedho odhan iga soo xaliya arrinkan waayo xeerkaas wuxuu sheegayaa haddii ay gaadho marka halkaas laftirkeedana waxaan u arkaa in bedelaad lagu sameeyo